deni iyo boqol maalmo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaa xilka loo dhaariyay 8 Janaayo 2019 isagoo loo doortay inuu Puntland hogaamiyo 5 sano ee soo socota maalin ka hor doorashadiisii oo ay dharaartii musharaxiintu mudanayaasha baarlamaanka u soo bandhigayeen barnaamijyadooda siyaasadeed waxa uu Mr Deni ballan qaaday in 8 qodob oo waaweyn inuu Puntland ka hirgelin doono qaarkoodna uu sheegay sanadka ugu horeeya xukuumaddiisu ay hirgelin doonto. waxaan hirgelin doonaa nidaamka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan sanadka ugu horeeya xukuumadda cusub. waxaan xoojinayaa awoodda Puntland u leedahay gelidda heshiisyo horumarineed iyo kuwa maalgashi si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la xaqiijinayo in heshiisyadaas noqdaan kuwa daahfuran oo laga ansixiyo dhammaan golayaasha dawladda si hufnaan loogu soo bandhigo shacabka. sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo dhammaan heshiisyadii horumarineed ama maalgashi ee hore loo galay oo ugu horreysay heshiiska dekedda Boosaaso. qorshahan waxaa lagu dhammaystirayaa sanadka ugu horeeya ee xukuumadda cusub. waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa ilaalinta midnimada Puntland dad iyo dhul iyada oo mudnaan gaar ah la siinayo soo celinta dhulka maqoona aastaynayo qoonda miisaaniyad oo gaar u ah horumarinta iyo difaaca gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn. qodob ma istaagi doono 8 qodob maadaama xukuumaddu ay xurjin tahay balse waxaan diiradda saari doonaa qodobadii uu sheegay in sanadka ugu horeeya xukuumaddiisu hirgelin doonto. waxaa tegay 3 meelood meel sanadkii ugu horeeyay ee xukuumaddiisa. haddaba maxaa ka qobsoomay ama bilow u ah qodobadii uu sheegay inuu sanadka ugu horeeya qaban doono? qodobadaas waxaa ka mid ahaa inuu Puntland ka hirgelin doono nidaamka dimuqraadiyiinta sanadka ugu horeeya ee xukuumaddiisa. waxaan hirgelin doonaa nidaamka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan sanadka ugu horeeya xukuumadda cusub. balse wali xukuumaddiisu ma soo hadal qaadin komishinkii doorashooyinkana xataa miisaaniyaddii la ansixiyay kuma jirin lacag loogu talagalay dimuqraadiyiinta Puntland. lambar 2 waxa uu sheegay inuu bulshada u xaqiijinayo heshiisyada caalamiga ah ee Puntland gasho uuna ka dhigayo kuwa daahfuran oo dadka loo soo bandhigi doono. waxaan xoojinayaa awoodda Puntland u leedahay gelidda heshiisyo horumarineed iyo kuwa maalgashi si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la xaqiijinayo in heshiisyadaas noqdaan kuwa daahfuran oo laga ansixiyo dhammaan golayaasha dawladda si hufnaan loogu soo bandhigo shacabka. balse taa beddelkeeda safarkiisii Dubai oo ahaa safarkii ugu horeeyay ee uu dalka kaga baxo waxa uu heshiisyo la soo galay dawladda Imaaraadka iyo shirkado laga leeyahay dalkaasi. war saxaafadeed ah oo heshiisyadaasi la xiriira madaxtooyadu ma soo saarin marka laga reebo qoraallo ay baraha bulshada soo dhigeen qaar ka mid ah wafdigiisii ku helinayay safarkii Dubai. Saciid Deni sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu dib u eegis xukuumaddiisu ku sameyn doonto heshiiskii dekedda Boosaaso ee Cabdullaahi Gaas gacanta u geliyay muddo 30 sano shirkad reer Imaaraat ee lagu magacaabo DP World. sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo dhammaan heshiisyadii horumarineed ama maalgashi ee hore loo galay oo ugu horreysay heshiiska dekedda Boosaaso. balse taa beddelkeeda Saciid Deni markuu madaxweynaha noqday waxa uu iska indhatiray in dib eegis xukuumaddiisu ku sameyso heshiiskaas guracnaa ee aan bulshada loo soo bandhigin golihii hore ee baarlamaanka Puntland laaluush ay ku ansixiyeen. xilligii uu booqanayay Boosaaso asagoo la hadlaya bulshada gobolka Bari ayuu sheegay in heshiiskaas dekedda Boosaaso uu sidiisii ahaanayo una ku ixtiraamayo madaxweynihii hore ee Cabdullaahi Gaas maadaama waa sida uu sheegay si wanaagsan madaxtooyada uu ugu wareejiyay. mashruuca DP World dabcan heshiiskaas waa naga horeeyay waan ixtiraameynaa heshiisyadii dawliga ahaa ay galeen dawladihii hore maxaa yeelay waxay nagu ixtiraameen markii doorashadii laga bediyay inay si nabadgelyo ay ku wareejiyeen wixii awood ahayd. taas annagu ku qadarinayna annagu waxaa naga ballanaa inaan ilaalino wixii heshiisyo ay galeen. haddaba shacabka reer Puntland waxay isweydiinayaan madaxweyne Deni dekedii isha dhaqaalaha Puntland ahayd ee la dhacay ma waxaa kala weynaaday madaxtooyada Villa Puntland oo lagu wareejiyo.
Mr. Deni isla waqtigaas waxa uu anbabaxay dalka Imaaraadka wuxuuna magaalada Dubai kula kulmay madaxa shirkadda DP World. haddaba maxaa loo aaneyn karaa isbedelkaas oo bedelay waxyaabihii shacabka reer Puntland wacadka uu ugu maray hortooda? waxa uu sheegay inuu mudnaan gaar ah siin doono soo celinta dhulka maqan ee gobolka Sool iyo Sanaag, miisaaniyad gaarana loo qoondeyn doono. waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa ilaalinta midnimada Puntland dad iyo dhul, iyada oo mudnaan gaar ah la siinayo soo celinta dhulka maqoona aastaynayo qoonda miisaaniyad oo gaar u ah horumarinta iyo difaaca gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn. haddaba maalintii la doortay Siciid Deni waxaa furimaha dagaalka gobolka Sool soo baneeyay ciidamadii dalka ka difaacayay cadowga duulaanka ku ah jiritaanka Puntland iyo Somaliland, xoogana ku haysta qaar ka mid ah dhulka Puntland ee dastuuriga ah. balse Siciid Deni iskuma dayin inuu ciidankii dib u soo ururiyo tabashadoodana xaliyo, waxaana iscasilay saraakiisha ciidamada Puntland ugu sareysay sida taliyihii ciidanka daraawiishta Puntland iyo abaanduulihii ciidanka daraawiishta. ilaa iyo hadda madaxweyne Deni ma soo magacaabin bedelkooda. sidoo kale miisaaniyadii uu sheegay inay ku baxayso difaaca goboladaas laguma soo darin miisaaniyadda ay xukuumaddiisu golaha baarlamaanka u soo bandhigeen ayna xildhibaanadu ay ansixiyeen. haddaba ujeedkeenu waxa weeye Puntland xaggee ayay u jihaysan doontaa 100 maalmood kadib? waxaa idin soo diyaariyay barnaamijkan aan kaga hadlayo 100 maalmood ee Deni waxa ka qabsoomay ballanqaadyadii uu shacabku u ballanqaaday. anigoo ah Cabdilaahi Cabdinuur Yuusuf Cabdilaahi Bakayle oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala Puntland fadhigiisuna yahay Garowe.